kulankan uu goobjoog ka ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Beledweyne Maxamed Axmed Food Cade iyo waliba sidoo kale siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay gobolka iyo guud ahaanba dalka odayaal dhaqameedka ugu caansan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ay ku sheegeen in gib ahaanba ay qaadaceen xukuumadda uu majaha u haya Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Hirshabeelle maamul goboleedka Hirshabeelle dowladda iyo xumaanta ay wadaan markin aragnay waa tashatay beelaynta gaajacel ee degan aagga galbeedka sidaa daraadeed waxaan maanta qaadacnay qalbi furan iyo niyad sax ayaan ku qaadacnay maamulka Hirshabeelle Cabdisalaam waxaan weydiinaynaa hay'adaha caalamiga ah ee siyaasadeed qaramada midoobay dowladda federaalka ee Soomaaliya beelaha diriska ah ee gobolka Hiiraan jooga inta Soomaaliya hadda ka fiirsanayso saacada laga bilaabo bishii gaaljaal bahweyntii gaaljaal ee gobolka Hiiraan inay qaadacday maamulka Hirshabeelle laga bilaabo saacadaasi waa qaadacnay kalsoonida waa kala laabanay waxaan la shaqayn doonaa dowladda federaalka ee amniga inta jooga iyo Amazon waxaan ku tashanay oo ka fadhiisanay inaan biri ka nahay oo ka baraado qaadanay maamul goboleedka Hirshabeelle ilaa askiyahay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare waa qaadacnay أنا مقعد لينا إسلام الله قاسم إسلام وحنا عطينا Hirshabeelle شرع النجاة إسلام النجاة تاجرنا ما انتهى تاريخ ضعيف هاي بشع فرات سبح أبريل وحنا كالسيرة كون قلنا Hirshabeelle أصدر بهينا محمد عبد الوهاب ما كان فيرني دلنا دابيديس أخن حمديس دلنا محمديس دولنا محمديس هرمنا إلا أنت أنت وما كان لك السمكة ما لا يقع تواكو سلا درته وحنا لنا قبيل واكب جذن قال له جرني قرنا قال قرن كأساب قبيلنا قبيل مفهول أنا إسلام الله قاسم إسماعيل يبشر إذا تفاي يجوا وحاسب بيخلق عنه ما ممكن محمد وعار محمد عبد الوهاب أنا جاي أشتغل سكوب برمي ما أنت عشورين ولا كلبنا واحد سكوب بس المرة عبد الشكور محمد حسن تلفزيون كعالمي صاب تي في بلدوينه.